وأنا هذا علينا يا دلدا نافذ سومالان SNDF iyo wasiirka wasaaradda shaqada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada dhakhtarka isbitaalka Hargeysa gaar ahaan waaxda dhimirka warbaahinta Soomaaliland runtii waxa maanta halkan isugu nimideen xasuusino 3 Disembar oo sanad kasta loo qoondeeyay in la xuso dadka naafada oo adduunka ka runtii tiro aad u badan sidoo kale ma kaliya in la xuso waa in laga sheekaysto oo la ogaado dhibaatooyinka dadkani qabaan isla markaana daryeelka ku haboon la siiyo waan uga mahadcelinayaa runtii dawladda cusub muddadii ay joogtay waxyaabo badan oo qabteen ay kamid tahay madaxweynuhu magacaabay la taliyay dadka naafada iyo in kuraas loo qoondeeyay shaqo in dadka naafada helaan laakiin runtii waxaan aaminsanahay ka xuquuq insan ahaan inaanay ku filnayn dadkan waxay la kulmaan takoor kala duwan bay la kulmaan daryeel la'aan bay la kulmaan gaar ahaan waxa ugu nugul ah runtii dadka dhimirka la nool oo si aynu ka warqabno maanta halkan ay joogno inta ku xareysan waxa ka badan inta runtii banaanada joogta iyadoo in ognayn in December ku jirno oo runtii bishii dhaxanta ah January ay soo socoto runtii waxa u baahan yihiin kaalmo degdeg ah iyo daryeel guud in la siiyo iyadoo dastuurka Soomaaliland iyo axdiyada caalamiga ah ay tilmaamayaan dadka nugul ee naafada runtii in loo naxariisto la ixtiraamo lagu daro siyaasadaha iyo arrimaha nolosha ee socda isla markaana la siiyo oo helaan waxay xaq u leeyihiin kala mid yihiin muwaadiniinta kala duwan runtii waan uga mahadcelinayaa dawladda Soomaaliland waxaan soo jeedin lahayn laba qodob iyadoo waqtigu nagu yar yahay in la sameeyo runtii xeerar lagu la dagaalamayo faquuqa iyo takoorka dadka naafada haysta iyo talabaad oo dadka dhimirka la nool laamiyada magaalooyinka ku dayacan runtii in iyagana bustayaal xilliyada dhaxmaa la siiyo iyo goobo lagu hayo oo lagu daryeelo aad baa u mahadsantiin